وعنا ونكسن إلى هانتين بملك استاجوكتان أصحاب تقاليها ونسلامنا ألك النقطة ونسانا من قلنا سعوتان ورسمي رئيس يوتيوب كذا ونعاو مرتكو هاي كل يواق مرتي ما هي طبعا أنا بعاو لكن أنا بعاو هذا أنا مرتي بنا دندوني أنا بالفرو ورياشو يعني ما وعود دينبا waxaa ku dhaatay wariinimadina waa lagu wada jiraayo ibaaqna waa isfahmayna sax marka horta asxaabta qaaliga meel kasta joogtaan ee rasmi rays ku xidhan waan salaamayna qeydii baa kubeed ku xidhan dab waxaad arki jirteen inagoo fanaaniinta wareysano heesi bilaad qaaday waxaas caawa ma jiro waa xoogaa shactiraas oo lama odhan jirin qaraaxo waay dimaashaday سلاشة رسم حد سلوينيا بالرسم يي حوجا بدرت تشوكتي مقالة هالجيس متقوم بتشوكتي صح مركا أنتي أنا هالجيس إيمانين قفل بصور بو مسكحي بس إمكان يرومي ما تجينه تصور بعد أنا مسكحي ذيك وحياة ميلها مركا بل هذيك الصور كان نوعية بالكاست مقالة هالجيس أنتي أنا نرت أنا ما صنتها ولا شيء فالمريات وعاو برنامج كذا نوع صنت يعني باق يعني هرجس واحد كيستي مركورة بس أنا كأجد قعسنت أنا كي قعس من أنا برنامج كي قعس من هاي سو ولا كلية شقدة هرجس مركور واحد كامل سنة تهمل في عن واللي جيب قبلكم صار إن هرجس حن سببته أما دابا فنانين هاي أما أبوانين أما أذو واحد فنك وشقنا دن دي هرجس وحي وتهوي فنك ما دام فنان هاي أنا هرجس قرض كلمة بفهمي كرب أنت هذا هو أنا وهناك كامل سنة ما دام عندنا حاجة كسر جود halkaas ay saaranta dhamaan aad gabadhayadii tahay intoodii aan ibaaq waxaan weydiinaya mataqaanaa horta anagu maalintan reportka idigu soo dhaweynaynay dee waqti horaan nimid marka ibaaq imka maanta dhan watiiga kaa turjumaysa kulahay dee laasaaska dee qofkaas hadalma ibaaq baa noo kala afkooda ibaaq ugu sii sheegtay soomaali baa dee la kala turjumaya marka bal ibaaq waxaan doonayaa inaan xasuusiyo maalintii madaarka xilligii waqtigii dadkii naga dambeeyay bay daba fahamsan waxay timaanaba googoonay oo casaaday oo cadaaday la madabaaday marka way nooga dhacday barta maalintii inaga dabagay baaqay maalintii rasmiye farxan waxay yiraahdeen 8 saac oo maalinimo ay malan 8 reergeysana waxay soo tubeen 8 subaxnimo anaga 8 subaxnimo taagan bulshada saasay tahay dulqaad bay muujiyay 8 subaxnimo ilaa labadii inta ka soo dagayeen waa la sugay masha Allah waa loo taagnaa marka saacado bas u khaldamay 8 saac subaxnimo waxa weeyaan 8 saac subaxnimo waxa weeyaan waa labada duhurnimo iyo barkatay ma waa labada duhurnimo caadi ah ila loo sameeyay صح هكذا بركة يطلع واحد كوري باق لكن واحد تمحي لك ديارة سولتك سحوقها بك ساعة بيفازن المدام أنا أيضا كل كان أنا قلنا واحد متبقي الصبح نمو واحد ما يقول تبقي الصبح نمو تبقي الصبح نمو نحو 5 ساعة وما نمو يا اسكت واحد كل وانا لقول رسمية دول باقوها يا عاون صح ولا لا كبرتني يقولوا من هاي وحوي ووري ويان هذا كان ورا بيجري بريق هذا ورك عبوا كود لا يريرا قف كساوريا ولا قحشون جينا والله لا يعجل ليش الجواب والله بس حسوينا وبلا قفانا يا با مري وينا وسقفي وينها وري العام جرينا ولا ولا يقول هباق ما وريني من صورته على صحافه اسلا دمينay ما شاء الله ما شاء الله markaas bayadu fankayga la xataa cod baan waayay عد كأي جنبي لكن عد هذا سكوت ولا هي أنا واحد باقي واحد يصدق كذا كلام يا واحد كبردن وريه إني ماذا وقف في عناد واحد كل محل وقف في عناد هساوي الواحد يبلد هي والغادي كذا ما يحاسب ولا يسافر كلام ما ذيك طريقته وحاسب هي بقى قفل كورن بسم الله هي بقى قبل واحد يحس صابري نهرتا sideed u joogtay un bad hal mar adigu fanaanad noqotay bal waxaad ii sheegtaa xataa kaama wareysan dhowr wareysayaan kaa qaaday naabaadil maxaad ku dooratay caawanka oo yeeshtana bal weydii rasmiye ii weydii su-aasha may wariyeen caafimaadkeedii waxay uga tagtay ugu tagtay fanka anaa ku weydiin maaniga inagu adeegsanaysa waxay dadka cod male أنا كويدنا ومدن دابنا سيدنا صور فريضة إمين كواحد دوني أنا نهباق سؤال بدو ميديو ما دام يقبل وريده أنا بيوكلت
hal su'aal baa lagu fadhi labo male labo mid labo male fanaanad baa tabarka jooji fiican dhageyso hiba walaal su'aal ku weydiiyo adii faamiliyada hore ugu sheegtay inaad saxaafadda hal meel ka soo wada baxdeen maxaad saxaafadda uga tagtay oo fanka ku dooratay walaal adigoo raali ah adoo raali waxaan ku doortay dadka yaan la isku kaya dir horta waxaa labada maxay hayday waxba way isku mid fanka iyo saxaafadda iyo waxaasba isla hal marka already walaashay waxaan isirigana xaggaa kuu qaabilsanaato dhinaci fankuna idiga maranine iyo yani idan ka banaanine adigu isku sii daa marka dee si aan maxay hayday dhinac walba aan uga hadda may ogashay inaan isu yara bedelo oo okay hadda su'aal kale la isoo dhiibto walaal adigoo raali aywa oo dhagta waxa loo maqashaa leeyahay dhagta maqalkeedu fasaxay walaal waxaad ii sheegtaa maadaama inantan booska saxaafanimada siisay kaga baxday adiguna fanka dooratay labadiina laba shaqo kala doorateen iminka ma ogashahay inaad adigu saxaafadaada ku laabato inantana aad u yar dhigto fanka walaalay horta maxay hayeen waliba aad heesaha ugu dhibtid ayadana barnaamijyadeeda kugu wareejiso horta walaalay waanay kula shaqada waa la kala leeyahay kawdhe de hadday waxii kordhinayso maxay hayday isaxayso wixii iga dhimanay ii buuxinayso hal fanka ka baxaa lagu yaro saxaafada gal saxaafada wani loo xilliga sheegayso 5 sano 6 sano waa beenteeda waxa loo inay ku wanaagsan waliba gabadha ma taqaana waxa weeye dadka ma aragtay qof kasta horta qofku ka cod degay ko si cod macaan masha Allah sax marka aniga waxaan maqlaati ka ahay inay ahayd waqtigii aan saxaafada wada dhigay dadka ugu codka macaana ugu cod karsanaa tayba dadku waxay yaqaanaan moogti qof degan laakiin nagu ma garanaa bismillaahir rahmaanir rahiim inayna islaamka ilaahay ku wada haya ay caawad wal sanada inta wax dhaafayba ana waxaan la yaqaan cid ka maskinsan ma jirto cid ka qorad weeyaan ma hadasho ku ina oo ma muranto laakiin aniga ugu waxay tahay maxaad ku runtii taas waxa way soo weynay caawa idin okay walaal adiga raali Faadma Riyaad aniga waan kugu wareejiyay warinimadaada fankayga soo celin ha ku tagi walaal ma digidaysa may soo celin qaado qiimadaada dadina badalay baaqay masay ugu badali kaamootiga camalkaaga waxaad ii sheegtaan maadaama dad intii ugu badneed darkiisa joogtay baa qad iskugu dhawaaday iska soo muuqateen hadalkiina deemka turjumaamay ku noqotay baada waxba laga qaban karo sax hadaladii ugu badnaa horta anu yiro kelmadeeda wanaagsanaya snapchat-ka soo gelisaa ku qoslay kelmadeeda isla fahmi weydeen kelmada qaardeed isla fahmi weydeen ajirto ayaa jira sax oo inkasta dil xajada Soomaalida isku wada mid tahay haddana oo si kala yara xaraabo badan tahay sida loo kala odhanay marka bal hibaaq waxay dhowr kelmadood isla fahmi weydeen okay oo isku yara cakiratay horta maalin waxay jirtay hibaaq inaga soo fadhino ayaan qof aan hadlayo qofkii waxaan ku eray unuku leemanihino maanta dhan way sugayso markaan telefoonka dhamay waxay ugu rasmi walaal waxa hadda dhaysan doonaya inaan dhaho waan dareemay inay dhiig karno waxaan ku walaal aniga cadeen baan ka doonaa snap diyaar ma tahay si ugu tiri ha snap kala soo kay kaas waxaan dhe unuku leemanihino ayda sabad unuku leemanihino waa kila tarkiis hadaawo unuku leemanihino hada oran maayo taageeraha dartiis u dheh maxaan dhaaway unuku leemanihino waliba bawsi unuku leemanihino okay waxaan furi waxaan daawaday inta badan 4 jeer 5 jeer baan daawaday clipka oo ku leemanihino unuku leemanihino kunta micnaan dabka saarto cuno okay rasmi rasa wali waxay noo sii socdaa su'aalihii iyo barnaamijkeeni marka waxaan ku weydiin lahaa horta dadka bini aadanka ahi meel iska soo shabahan waxa lagu oranayaa adoo iska jooga halkan baa lagu oranayaa qof Muqdisho jooga ama qof dibadaha jooga ayaa lagu oranayaa dee waad isku eegtiin ama hadalka iskaga eegtiin ama qosolka iskaga eegtiin ama waxba iskaga eegtiin ama dharka iska soo shabahdaan waa dee dadka bini'aadamka dhan baa ka siman marka dadka caalamka hadday actor noqoto iyo hadday noqoto dadka fanaaniinta caanka ah mala guuri wala qof baad u egtahay oo dadka in badan kelmadaas may kugu soo noqoto aniga meelaha inaan qof kale u ekahay aniga le waay
laakiin dadku deesato dadku kuma odhanaa aniga le waaye rasmi le waaye alxamdulilah ku faraxsana inaan ahay gabar Soomaaliyeed oo muslimad ah laakiin badanaa dadka waxay dhahaan marka waliba makeup-ka marsado waxa u egtaa Priyanka Chopra naag gabadha waan jecelahay waxa weeye Priyanka Chopra oo waxay dhahaan wali waxa u egtaa meel kale maahan afka markaa qosshid iyo indhahayga meeshaas oo makeup-ka yariska lama hogge labadaas meel oo egtaa ay dhahaan iyo waliba indhaheedii buniga ahaa ma la odhan jiray waaye hadeen ka gudubno hibaaq Yuusuf Cabdi magaca laga miskiin maaha gobaad waxaa dhabal isku darsaday bal dadku fankaaga ku xidhan waxaa jira dad aad u badan oo kugu taxan adiga oo ku taageera keebaa loo kala codeeyaan hadday heesaaga noqoto iyo hadday riwaayadaada noqoto macnaha keebaa inta badan dee feedbackaaga soo noqdaa lagu soo celceliya waxaasad ku wanaagsantay hibaaqay taa ka waran horta maxay ahaydee inta badan dadku waxay ku yiraahdaan riwaayadaad ku fiican tahay aniga laftaydu inaan heesto waxaan ka jecelahay inaan riwaayad dhigo tan jecelahay baa taas laakiin heesaana markii ay habeen iga qabsato bal inta ay fanka ku jira 3-4 heesood baan leeyahay waaw heestii Xabiiba Xasan Tooxow ee Allah naxariistay aad soo cusboonaysay raka toorkiyan adayga waxaan fooyar laga dawaa waxay fanka yar noo qaadeen waxaan jecelahay inaan riwaayad dhigo ma inta heestaasi waxay hees cajiiba codkaasi waxa dul dhigtay codkeedii doorkiyan ka tugsanayo naftu dayna bidaynayno waxaan doonayaa ayna dalabgaley daqadaha rajada hadda boolino waa dhamaatay intaas heesta ka carreysa shooba doorada kula waay caawa lama odhanayo halkeed fanka ka bilowday waxaas way noo dambeyn doonaa barnaamijyo kale hibaaq soo hadda waxaa lagaa doonaya waa tookadaada walaalta tooka maxaa laga wada tooka waxaa laga wada markaagi maana sixin sax walaal waa turjubaankeyga sax Faadma Riyaad walaashay wariyaan jecelahay marka laga yimaado ardaynimadayadii waxa wariyaasha ugu jecelahay sababtoo qofaan isku jiilnay anu maxay heeday mar uu saa ugu soo wada hadnay meel waqtigii la walaashay horta maxay heeday de horta xoog iskuma wareysano waqtiga inta leeg inta badan iskuma helo marka meelaha isku qabanana arrimo inta ka muhiimsan ma ka wada hadalnaa marka Faadumo weyn wada ognahay inay wariyo weyn tahay inay gabadh maxay ahayd booskii loo baahnaa buuxisay tahay inay gabadh saxaafad yani warayso sidoo u ahaa ma dhegeysan karo no sameeyay baas dhegeysan adaba ay jiirine waxaan Faadumo waxaan weydiiyay waanan ogahay dad badan oo aniga sidoo kale su'aashtii ka dhex baxayso qofka bini aadamkii mar uu busiraahdaa heblaayo ama heblo waxaas baad ku fiican tahay qabo ama ku dhaqaaq Faadma Riyaad kulli cid kulmay taliyadu baan maxay ahayd saxaafadiisii tagtay sababta ay Faadma Riyaad maxay ahayd saxaafada u baratay iyo sidoo kale goorta ay ogaatay inay noqon karto gabadhii oo dadka soo hor fadhiisan karto dadka xusuus gudbin karta ay is ogaatay inay noo sheegto iyo sababta waliba gabadhaasi waxaan ku waxay ogtahay wariin midii ogtahay diinta waay iminka rasmi ah oo weyn tani waa dooq bulshada waay waxa way dooqayaan ka hadla marka horta qofka bini aadanka waxa uu siiyay hibo صح إنه هذا إنه مدحوين النقض إنه وسير نقض إنه وحاصل قف بلادك يسقي كوا أبورنت مركارة أو قف اللي لوش يفتشوا كليه موتى صح مركارة أنا جو لبدا كون يوم مرها مستحيتهم كمية عصبية سيربتهم كحنا عصب صدحتهم كبيرة أنا بقول قرني وكاستحيتهم كي أيام شعلست إنا برتو شونا نسمك كدمنا أضو هبلان صاحبنا يو أيام يرتري كدمنا حلو إني وريين بدي حاولت كفي عن تاي تتبدل بعد ويدي waxaa jiri jirta xataa waqtiyada qaar aan oran jiray sales ku soo horfadhiistaa qofka markuu wax la daadihinayo salas oo saas assalaamu calaykum marka waxaa jirtay TV-yadana waan daawan jirnay marka nimca samriye oo aan aad u jecelahay waa gabadha wariyada iga weyn markii aan kastaan soo gaarin horteena naga baxday
inkastana waqtigeeda soo gaadana waa qof aan weli aad u jecel marka waxaa jirtay waxaa iyadana aan isbaqalay waqtiyadii aan haddaba saxaafadda soo galayna ahayd dadkii dhiirigeliyey maasha allah macnaha ay guuri barnaamijyadaada waan ku xidhannahay aad baad mahadsantahay walaashay marka aniguna iyada laftirkeeda barnaamijyada daawan jiray barnaamijyo badan baan daawan jiray marka sidii baan saxaafadda adigu ku dhameeyey sidii baa dee lagu uri ku shaqo gashay welibana waxaa laysi kala doonay inaan ku fiicanahay dhinaca sugaanta ku wanaagsan maasha allah mid kale horta inkastaan ay ahayn maxay ahayd waxbaan kale hee aanay de wax khasab ahayn inuu markasta qofku soo gacan qabto qofku keliya xataa wax iska dhigi karo laakiin majority-ga dadka qof walba qofku maxay ahayd heerkuu gaadhay ama shaqadu ka shaqeeyo uu yahay mid abaal u hayo ama uu odhan karo qofkaasi maalintaasuu garab weyn hal maalin hadduu doono qofku wax kaa khaldama kuu saxo ma jiraa qof yacni kuu calaamadsan oo astaada faadumooy qofkaas yacni wuxuu ahaa horta ibaaqay aad baa umahadsan tahay waxaa jira horta maasha allah horta aniga bulshada inta ugu badani way jecel yihiin macnaha waxaan helay bulsho saxaafadayda jecel qof kasta oo ay arkaa way dhiirigeliyaa waxaa waad ku wanaagsan tahay hore u soco marka waa wax ilaahay bixiya marka kale ilaahay loogu mahadnaqo laakiin dad badan baa soo gacan qabtay oo saxaafadayda qayb ka ahaa inaan macnaha wax noqdo marka iyaga dhammaantood waxaan leeyahay waa mahadsantihiin malaa'igtidin miilowda waynaga soo naragna gabadha magaalaba way soo gacan qabtay way soo tira koobi kari weyday waana halka ka dhisantay waa gabadha loo kala harin lama kala harin maxay ahayd horta hibaaq waa taatay caawa waxaan doonayaa saxaafadee la wareegteen caawa aan ku sinay iminka kula joogaa way naga caraysanta kula ma caraysani leegan ilaa nasi caawa ku faraxsanay waa ka horeysay nasi ta kale walaalay waxaan arkay qofka bini'aadanka marka waa lagu wareysanayaa su-aal baan weydiinaya si wada jira ma sidana u gargariiritaan ani marka la dhaho waa lagu wareysanayaa jirkaas ay marka waraysanaysa ka waran maxaad dareentay war maxaad farxaysiinaysaa baan ku dhawaaqay takala waxaan ku idhaa runta kana dawayna walaal faraxo lamesh geeri ma joogno walaal wanaad sii qosashaa waan arkay taana ku taala qof cadhaysan weli barnaamijka ma qaban qofka xataa duu aaminsan yahay ku dhahay walaal yar qosalbe aniga dartay ma sax walaal marka haade sidana loo gargariiraa oo hadalkii loo garan waayaa oo wixii la waday loo garan waayaa bise waxa aniga kaliya horta waa lagu qabaa horta aniga waxaan israaday faadamo kale markay wareysanayso taarimo badan baan iyada isla ognay moogta xasana gabadh waa weli waxba deemayse bili waxa isla ogeedeen shaaraca keenta waan kasii warwar faadmiyada waxaan ka bartay inay farxad badan tahay su-aalaheeda ay gaaban yihiin markastoo su-aashu gaabato qofku wuu furfurmayaa moogta xataa wuxuu noqonayaa qofta iskala kaa sheekaysanayo iska kaafi laakiin haddaan ku dhahdo rasmiyey waad carari doontaa wan malaynaya insha allah wareysi oo loo kala harin waxaad ka daawanaysaa insha allah alla idmo dee youtube-kii faadma riyaadna meydii soo dhaweynay wax la iloobi kara ma asxaabta qaaliga ah faadma riyaad youtube-keedana insha allah linkiga waxaan soo dhigaynaa أنا ما أسوي لي مليء جيميل-keeda soo dhigaynaa جيميل كمان وحسوي شكل روبو دير داون كري وانا hoos soo dhigaynaa gmail-kayga hadda wax soo dhigay fiidiyoda lagu diri karo oo ma gaari daawan kari oo inta soo bixin karno li daawan kari ku tahay online ka helin marka faadma riyaad youtube-keeda halkaas hoos ee linkiga soo dhigayaa wareysiyada iyo dee ku yaaca boqorkii reerkana odayada gaari kari waayey familka wareysigooduna waa dhibay hadda asxaabtu yaaba waa meesha ummadda ilaahay oo dhan way jecel yihiin dadka wanaagsan afka gaaban akhlaaqda leh sida fiican dhaqan sax maxay hayday laakiin dadku dee qofba waxbuu necab yahay qofba waxbuu diidaa qofba qof si baanu ka helin qofba dee maxay hayday xagga amba walaaltinimo ha noqoto amba asxaab ha noqoto amba cid kale ha noqotee dadka waxbuu amba ku jeclaada amba ku naca maxaa ka mid ah adigu dadka aad waxyaabaha dadka ku nacay ama dadka aadan ka helin aad intale horta dadka waan wada jeclahay maasha allah laakiin dadka waxaan ugu necbahay kan dadkas jecelka la geeyo laba lamaana oo gurigooda farxad ku dhisan yahay oo isku qanacsan dadka youtubada usoo geliyo way isfureen iyo wasaan iyo way kala tageen iyo way isdagaaleen iyo waa la xiray iyo waxaa kaloo necbahay dadka isjeclo lamaanaha ah dadka warka u kala geeyo like hadda ninkaaga camal la imaade saanay samaysa islaantaada
islaanta la imaada ninkaaga sameeyay nin naag isqawrto waxba kala ma qarsadaan taasaa qofna caad ka saaran hore waxa loogu maamaay walaashaas ku mubtada seedigaha colaysan yani gabar kasta walaalkeed way jeceshay laakiin waxaa maamadaas loo soo qaatay gabar kasta inaysan ninkeeda meel la ka ahayn way su'aal kale su'aalaha way mid kale taa la xiriidhaba adoo rasmiya maanta anigu waan ogahay adiga odayga binaad isku jeceshiin dad is ixtiraamatiin dad isku wanaagsantiin ma kula tahay maanta qof yacni waa qof xun qof wax samayn kara qof maanta intuu kugu soo dhiirado ama farxan ku soo dhiirado oo wax kaaga sheego khalada ama uu isaga wax khaldan adiga kaaga sheego inuu ama farxan maqli karo ama adiga maqli karto ma aaminsan no ma aaminsan hadda waxay ka qaadi karaa bas no meel bay kaaga badan aniga waxaan ahay farxanna waa rasmi waxaan ahay hal qof ما شاء الله إذا واحد نوكل جين كرت ما يركب بدن بدن دوري سايد سايد لما أنا كستنا هذا الساس سميان وحتى وقت الله شيء إيه هالك أو دقيقان إيه ساعة حاس كأنها أوجين من كأنها أوجين قفك ورك وش قطرية أي بتاع إذا من المقتص كتهدلني هالك هو سببت مرتقف بدن وهذيك كار كنا إننا نقول شو دي يقف كنا ميميها مركو وركو كان كتلوس warta muku makeenay wajigaaga inaad waxaan u baahnay tan waxa uu ogayn qof inuu ii imaado aabiisna kuma dhaco inuu sii dhig karin ninkaaga no wad xanaaqday qadalaasho walaalaas ma xaalad daji raal noqo kaftan leh ana ku soo noqday wariyanimadeydii ku siin soo noqo way mustafanaanimadeydii ku soo ma warinimadaada way asxaabta qaaliga barnaamijkii gabagabadii soo gaadhay كلين بدن بدنا سعتين كل اسكو ترتلو دينا عورين بداي باقي رسميه فادمدي داي marka ugu dambeyn waxaan rajeynaynaa inaan iska soo gabagabayno ana waan jeclahay inaan iga tagnaadna waa waqtigan haya bal waxaan doonayaa si wada jirayna su'aalo weydiiyo sababta qofka bilaadka ay uu riyooda qof kasto adduunka ku nool uu riyooda marka waxa dhacda riyaygu laakiin si kala xaraabo badan yihiin baaqi waxa jirta riyaad ku riyooto oo jarka dhacaya idin bilaan maaye tiibaq waan ku horeynaa horta qosolka badnay igu qosolka badnay torta la yaraantii soo riyoonay dad soo xaadir waana way badan laakiin tii igu dambeysay ama tamar kasta igu soo noqon inta badan ay igu dhacdhacda marmarka qaar bana noo hurdo sariirtii hurda waxaan ku ridaa suuqa dhexdiisa maray ku waan soo booday waxa ka sariirtii hurda waxa istirada boorka iska duniyada hurdo intaas marka taasaan maxay leeyahay taabta qaaliga ah qaaliga waxa inoogu dhan caawa waxaan program idii haynay oo aniga waa gabadhanay waa aniga tanay waxaan ku dhintay muddo hawada ugu kulmayno assalaamu calaykum haddana imika hadalka saa wuxuu dhigay imika odhanaysa wariyaas rasmi rays taageerayaasheeda iyo asxaabta ku xidhanaa waxaan rajeynaynaa waraysi inta ka weyn oo ka faca weyn oo insha allah kaligeed inaan qaybta wax ka baro idigu soo xasuusto la socon doontaa insha allah halkaan waxaan diyaaraan u nahay linkiga walaashay Falmariyad ha lagu yaacay YouTube-keeda war cidii aniga ima leeyahay gabadha u taga hoy u taga iyada waa inta isku soo darsamay okay barnaamijku waa xireenaa caawa waxaa channelkeeda marti u ahayd walaashay Falmariyad hibaaqna marti ma ahana hadda kore marka soo markay soo dhaweeyada ma nagale naadiga marti marka channelku waxa caawa marti ku ahayd walaashay Falmariyad anagana waxaan marti ku ahayd nabadeena barnaamijka waynay wareysteen caawa marka aniga wareysan marka waxaan leeyahay fadlan channelka hadaa ku cusub tahay rasmi rays like share comment subscribe helloin hadaa hore u joogtay aad baad u mahadsantahay waan jecelnahay walaashan channelkeedana hala booqdo fadlan de like gmail-kaaga sida ayo nabadgelyo maasha nasiiqaad